أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلهي بمهل سبحانه وتعالى ولا لهي وحرجيني إن العدكي مقليسين هدي آبا إدمو إن شاء الله تعالى. إلهي بان كبريا سبحانه وتعالى وقت يعني سلفا دينو إن سلا جوجنا يري كوبان إنو إلهي نو بركيو. كسو دوادا حلقة أمالينيو رمضان إني قدام بيسو، لكن حلقة دي قدام بيسي كل مدورنا من نقونيس بإذن الله الكريم. ولا لها وحان كعطسانيا إن شاء الله تعالى إن أدلو ذاكتين ولا لها كلي وأتشير قريسين وحان كفرانين إن شاء الله تعالى آيات قرآنك. إلهي سبحانه وتعالى الدعاء ذوينا بريا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وعجيب وفاملي إلهي نسي، إلهي نوغقر، إلهي نوسخر، إلهي نهليشي، إلهي نغو أرزاق، إلهي كدق بريها يغا قويسسك يغا durriyada aadna siinayso mid aan ku indha qabowsano xaasaskayaga, nimankayaga, qoyska iyo guriga aad nagu arsaaqday ilaahu ka dhig mid uu noqdo midaan ku raaxaysano adduunyada intaan joogno, midaan ku indha qabowsano adduunyada intaan joogno, midaan ku faano adduunyada intaan joogno, mid aan ku fikirno in aan janno ku aadno. wajacalna lilmuttaqiina imaama. waa cajiib in meeshaasi dabcan waan isdul taagi doonaa hadduu alla yidhaahdee waxaa ku jira qoyskaaga iyo gurigaaga iyo faamiligaaga iyo ilmahaaga iyo adiguba in aad noqotiin role model. waxaa idinku soo dhaweynayaa xalaqadii labaad. walaalahay soo dhawaada. sidii aan ballan qaadnay 2 cisho ka hor waa anagii nidhi waxaan soo galaynaa maalintii jimcaha waa anagii sheegnay markaan dhammayn kari weynay barnaamijkii oo inala ballaadhay. waa anagii dhahnay waxaan kusoo laami doonaa axadda insha allahu tacaala. aad baan ugu mahadinayaa macalimiintii cumar oo iyaduna waqti fiican runtiina siisay oo ballan qaaday in ay soo laami doonto, maxaa yeelay runtii aad baa loo mashquulsan yahay. waxaana dareemi karaa walaalo badan in ay ramadaan dhammaadkiisii maadaama oo lagu jiro ciiddii ay soo dhowdahay aad loo mashquulsan yahay. marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaa inuu ilaahay naga aqbalo. iba cumar soo dhowow. hameen labaad ciid baa soo dhow, hameen dambe ama hameen ku xiga waa ciid. waxaan idin leenahay dhammaantiin soo dhowaada. waxaan idin leenahay ilaahay soonkii ha inaga wada aqbalo, idinkana ha idinka aqbalo, allah idinka farxiyo. haddee cidda daawan doonta iyo idinkaba waxaan idin leenahay dhammaantiin hadday qaraabo tahay hadday cid kasta tahay waxaan leenahay insha allahu tacaala ciid wanaagsan. ibo kusoo dhowow. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. aad baan idinka mahad celinayaa dhegaysigan dhegaysanaysiin. haddii aydan idinkuna qiimeyn amba aydan dhegaysan runtii maynaan yeelanayn qiimo, maynaan yeelanayn. saxiix. waxa weeyaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan isku soo noqnoqono oon khayrka kala faa'iidaysano, oon wax isku sheegno biidni illaahi alkariim, oon istoosino, oon maaragtay daartan imtixaanka ah aan ku dadaalno bal maaragtay sidii aan ugu guuleysan lahayn insha allahu raxmaan. ducadii aad ku furatay axmed oo runtii duco qaali ah weeyaan. maxay hayday aniguna waxaan ku darsanayaa duco kale oo odhanaysa maaragtay rabbi ijcalnii muqiima salah wa min dhurriyatii rabbana wataqabbal ducaa. ilaahu ducada naga aqbal. maxay hayday mid kale waxaa jirta dhahaysa rabbana اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. waxa weeyaan ducooyinkaas oo dhan waxay ku dul wareeganayaan oo ay ka hadlayaan caa'iladii, ilmihii la dhalay, maaragtay waalidkii laga yimiday iyo wixii aad sii dhashay. marka waxay soo koobeen familigii oo dhan. kadib waxaa loo sii gudbay muuminiinta oo idil oo isku xidhan. dadkaas oo idil waxa weeyaan jasad keliya ayay isku yihiin. marka waxaa la rabaa sidii ummad quality leh oo wanaagsan ay u noqoto inuu qoysku badbaado, qoysku inuu hagaago insha allah, uu qoysku horu maro oo ilmuhuna ay ku dhex koraan hooyo iyo aabbo ay ku akoraan isfahansan oo dadaalaya
oo dhibtii noloshu ayadaaba fara badane dhexdooda ayna dhibi ka jirin insha allah reeraha badankoogu waxa weeyaan khayr iyo barwaaqo ayay ku jiraan in badanoo intaa leegna waa dhiban yihiin marka in bal maad aragtay aan usoo jeesano horumarinta reeraheena iyo qoyska iyo aan mithaal qurux badan u noqono dhalinyarta soo koraysa ee guursanaysa lianna wixii haddii aad maaragtay khibradaada iyo intaad aragtay iyo inta kaa agdhow oo asxaabta iyo faamiligaaga uu guurku ka burburo adiga xataa cabsi baa ku galaysa waxa weeyaan fahan khaldan inuu ku galaa dhici karta waxaani maaragtay wax burburun ku dambeynayo inuu noqonayo ayaad moodi oo aamini marka runtii niyad jab ayaad ku sugaysaa guurka iyo cabsi ayaad ku sugaysaa halkay ahayd xaqiiqdii inuu ka duwanaato oy ahaato maaragtay waxa lagu rajawan yahay wax la jecel yahay wax qurux badan wax noloshaada kamilaysa yaa nisfu diin ayaad kamilaysaa mar alla markaad guursatid wax fudud maaha runtii waxa weeyaan barnaamijkeena kusii soconayna jazaakum allah khayr khayr allah ku siiyo insha allahu tacaala walaalahay soo dhawaada xayaakum allah habeenkii hore waxaan tilmaanay dhowr qodob ayaan sheegnay ahayd si aan inii xasuusiyo intii aan habeenkii hore aanan nala joogin ama fursad aan u helin inay helaan ama ay maqlaan ama ay dhegaystaan bal caawa ka faa'iidayso walaalaha kale ee iyagu nala joogay ee daawaday ee dhegaystayna waxaan iyagana weydiinaya insha allahu tacaala khayr allah idin siiyo maxaad kala baxdeen comment kusoo qora qodobadii hore maxaad kala baxdeen insha allahu tacaala hal mid ma ka qaadatay oo ma ku dhigtay wiilaan saaxiib nahay ilaahay khayra siiye oo reer sweden ahaanaya haddana hargeysa inuu joogaan malanaya kayse la yidhaahdo ayaa wuxuu qoray buug yaroo la yidhaahdo halka qabso marka walaalkay waa aad baan u salaamaya khayr allah siiyo marka hal ma ka qabsateen qodobadii aan tirinay ma isdul taagtay ma kasii yara fikirtay insha allahu tacaala qodobadii baan idin xasuusiyo 7 qodob ayaan tiriyey hibena 3 ilaa 4 qodob ayay tirisay ilaahay khayra siiye hiba cumar waxay iskugu keen xidhay soonka iyo guurka u fiirsadaya soonka iyo guurku maxay iska sawaabiyaan haddaan u malaynayno noloshu inay iska iska noolaado oo la iska socdo ma aha wax badan ayay sawaabiyaan marka kow number 1 wuxuu ahaa niyadda markaad soomayso niyad baad ku soomaysaa waa run insha allah xadiiskii nabiga waa saas inama alacmaal biniyaad waxa weeyaan guurkuna waa sidaas leeg niyad baa lagu guursadaa marka in niyadda la toosisto ayaaba wax weyn ah niyadba horta inaan la nimaadno ayaa wax weyn inay naga hoos baxdaa dhici karta guurka markaan guursanayno inaan niyad ku guursanno sida ramadaanka markaan soo bayno laynoo leeyahay laynoo baray waa inaad niyeysato waa ina weliba xadiiskii maxaa laynagu akriyaa man saama iimaanan waxtisaaban غفر له ما تقدم من ذنبه عجيب مركاسا waxaan soo xaadirinaa niyadda oo waad soomaysaa aqliga u sheegaysaa naftaada u sheegaysaa bari soom baa bilaamaya okay guurkana waad guursanaysaa okay gabadh baa maaragtay reerkooda ka doonanaysaa nin baa maaragtay ama wiil baa maaragtay kaa soo doonaya maaragtay reer kale idin imaanaya okay niyadda marka waa maxay sideed ula dhaqmi qofkaas sideed u raali gelini waxa aad ka doonanaysana sideed uga heli waxa aad ka rabtana sideed uga heli waxa uu kaa rabana sideed u siini exactly waxa ku xigta qodobka labaad wuxuu ahaa sabirki soonka waad sabraysaa gaaji iyo haraad hayay baad u sabraysaa wax fudud maaha khiyaano lama imaan kartid waxba ma samayn kartid maad aragtay intaan waa luqluqanaa tiraada biyaha iskama liqi kartid waxba ma samayn kartid ya ilaahay baa ku arkaya ku daalacanaya marka sidaas leeg ayaa la rabaa sabir qodobada aad tiriso wuxuu ku jira ikhlaaskiiyo qodobada hadda aad sheegaysa ikhlaaskii ku jira ikhlaaska inaad waxa ilaahay dartiisa subxaanahu wa tacaala u samayso soonka ilaahay dartiisa u samaynaysaa guurkana inaad ilaahay dartiisa u samayso waxaa ku jirta training soonku waa training tababar guurkuna waa training waaba company dhan waa qaran yar waa run anu waan jecelahay runtii waxaan jecelahay mataqaanaa markuu mafhuumka guurka laga rabo uu kuu saxmo hawsha aad qabanaysid way kuu sahlanaysaa marka guurku wuxuu noqonayaa in meeshii aad wax ku tababaranaysay
iqtisaadkii baad ku tababaranaysaa oo xoolihii baad maamulaysaa korsiintii ilmo dhan inaad soo saartid oo warshad baad tahee warshadii inaad ku guulaysatid inaad maaragtay dad wanaagsan oo mujtamacaad kusoo dartid oo hawsha ugu culus ah in guurkaagii uu noqdo maaragtay meel ilaahay loogu gargaaro oo maaragtay family lagu daydo iyo maaragtay dadaalaya oo maaragtay isgarab galaya inuu noqdo dhinac kaste ayuu guurku kaa tarin garanaya dhinac kaste sabirkii wuu ku barayaa in fahanka dadka ayuu ku barayaa qualitygaagoo dhan ayaa soo baxay lianna way adag tahay in sanad keliya maaha guurkaagu 2 sano keliya maaha waa noloshaadoo dhan maadaama noloshaadoo dhan yahay maalin walba waxaynay kaa jafmaan oo iska toosisid ayaa la rabaa marka waa meeshii tababarada ugu waaweyn lagu qaadanayo runtii waa garoonkii la isku dhisayay lagu tababaranaya isla sidaasoo kale meesha aad isku dhisayso baad haddana inaad dhista la rabaa oo aad hore u mariso yacni inaad meel kale tababar kusoo qaadatay iminka dhalinyarada futboolka ciyaaroo kale maxaa la sameeyaa garoonno caadiya oo kale ayaa la tegaayoo lagu soo dee lasoo aalamiteeyaayoo lasoo tababartaayo training lagu soo sameeya garoonka weynna marka la yimaado dee wixii aad shalay soo trainingkii aad soo samaysay tababarkii aad soo samaysay bad garoonka weyn performance baa markaa la yidhahdaa in aad horumarin oo guushii inaad soo geliso marka okay trainingkaas marka aad ku dhex jirto isaguna muxuu leeyahay ilaan trainingkan guurka waxaa laga yaabaa bisha Ramadaan inaad tidhaahdeen sheekh bisha Ramadaan way dhamaanaysaa oo dee kow baa la yidhaha ayaaman macduudad buu ilaahay ku tilmaamay guurku waa maxay guurku ma dhammaado saaxiibaya guurku ma dhammaado waa ima muxuu ku dhammaadaa inaad kala titiin qofki intaa ma ku dhammaanaya oo dee furriin baa wad u ah guurki laakiin guurku wuxuu sii soconayaa talow maxaa loo malaynaya ilaa jannadu sii soconaya ma malaynaysin talow ahdiga ugu dheeraad saxiixdid weeyaan baa layidhi kontraayo haddaad saxiixaysid kii ugu dheeraa ayaad markaa aad samaynaysaa markaad gursanaysa alla kaftama dadkeed maalin maalmaha kamid a iga raalli noqdo khayr lahaysi maalin maalmaha kamid u wadaad ka kacay masaajid markaasaa wuxuu yidhi wuxuu ka hadlay faamiligii iyo jannadii iyo xuural caynta iyo yacna macaanka iyo quruxda iyo raaxada jannada ka jirta markaasuu siduu sida u sheekeynay nin baa meesha fadhiyo oo dhoofayba oo dee dhex socdaba maaragtay jannadii dhex socdaba oo isagu jannadiibuu ku dhex jiraaba ninkani markaasuu wuxuu sheekhi yidhi ma og tahay qofka ugu qiimaha badan leh adduunka kuugu dhow ee ilaahay uu ku tilmaamay maro hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna madax bay u tahay buu yidhi maaragtay xuural caynta jannada xaaskaagaa marka aad jannada isla galaysaan buu yidhi markaasaa ninkii wuu booday subxaan allah buu yidhi war sheekh adduunkii baan khaatib bilaahi ba ka dhahaya ilaa jannada xataa meela la galaysaa markaa la iska jiro guurku ilaa jannadu soconaya marka waa inaad ka dhigato mid aad jannada kusii aado insha allahu tacaala ninkaas wuxuu ka naxay xaaska oo isku qaylo badnaayeen oo isfahmi la'aayeen oo isla dhibanaayeen ayaa la yidhi jannadaad isla aadaysaan oo isla galaysaan marka yacna qofka cabsi baa gashayba wuxuu u booday wax kale maaha cabsi baa gashay marka cabsidaa waa inaan ka saarno oo aan ka dhigno meel lagu raaxayso ducada aan ku bilownay marka haddaan kasoo noqda kaftanka guurku waa training baan dhahay okay ramadaanku markuu dhammaado maxaa jira waa la is abaal mariya ciid way noo soo dhowdahay ilaahay idin barakeeyo insha allahu tacaala walaalaha la sheergaraya baaraka allahu fiikum ilaahayna inaga aqbala soonka guryahana allah inoo toosiyo oo allaha ka dhigo guryo wanaagsan marka waxaan runtii celebration ayuu leeyahay innaga waxaa laynaga rabaa marka guurkeennu marka uu maaragtay wanaagsan yahay inaan celebrate garayn celebrationkaasi inooguma jira guryaheena uu ka maqan yahay runtii waxaan u baahnaa inaan baranno in la israaco in la farxo in hadiyada la isku keeno nolosha haddii kale say ku macaanaanaysaa
honeymoonka seen uga dhigi karaa waa su-aal isweydiin leh honeymoonka seen hiba uga dhigi karnaa inuu maaragtay long lasting noqdo waaro ku daa'imo okay intaasoo qodobay hiba tirisay qodobada kale aan tirinay waxaa ka mid ahaa relationshipka maxaan uga dalnayahay vision iyo mission ru'yo ibahay صح waan isdul taagi doonaa qodobka labaad vision ka hore waa inaan ru'yo yeesho oo meel aan u socdo waxaan sawiranayo jannatul firdaws ma sawiranaya adduunyada inaan ku helo aakhirana inaan ku helo ma sawiranaya caqligayga ku jirtaa okay si aan ru'yada u gaadho oo u hirgaliyo risaaladaydu maxay tahay what is my mission meeshaasaan caawa isdul taagayna insha allahu tacaala qodobada waa idiin sii waday communication guriga aan communication lahayn lamaanaha aan communication lahayn aan indhaha iska fiirin indhaha aan iska fiirin ee hadal macaan aan isku dhihin maxay ku noolaanaya gurigaas disaster hibo qaylo iyo dagaal iyo xanaaq okay qodobka saddexaad wuxuu ahaa emotion iyo feeling waan isdul taagi doonaa waan ka hadli doonaa insha allah xalaqaadkeena soo socda emotionka ajendaheena kuma jiraba soomaali haddaan nahay ya iska waran iyo maxaa iga wareysanaysaa oday la weydiiyey iska waran islaam umushaanahay bul islaama markay umulaan baa la yidhahda maaragtay iska waran marka waxyaaba qaarkood runtii ajendaha inooguma jiraan qodobka saddexaad afraadaan idhaahdo lifestyleka sideen u noolna waxaan cunno kaana waa anagii sheegnay caafimaad qodobka shanaad wealth dhaqaale hanti inaan samaysano qodobka lixaad tarbiyada caruurta iyo tarbiyada waalidka adigu inaad tarbiyayso ilmaha see loola dhaqmaa maxaa yeelay ilmuhu markuu kugu soo maaragtay ilmu soo ziyaado gurigaaga wuu bedelaya qodobka lixaada ugu dambeeya hiba wuxuu ahaa contribution missionku marka dhex jira contribution legacygaagu muxuu yahay maxaad ka tagaysaa marka lala soo wadaaga idinkuna aragtiniin insha allahu tacaala khayr lahayd iyo hibo صح weeyaan maxaa la yidhahdaa mission ma hiya risaale horta inaan maxay hayday risaalo aan fahano ayaa la rabaa haye risaalada maad aragtay ilaahay uu noo diyaariyey wax badan buu noo diyaariyey marka laba qof oo waxaa isla joogtaa laba caqli oo kala duwan wadata ilaahay raxmadiisa guur walba loo fiirsado labada qof isku si wax uma arkaan ya isku sina uma fikiraan marka maxaa la rabaa inay isbuuxiyaan baa la rabaa hadday dadku isku mid u fikiri lahaayeen isku sina shay u arki lahayn horumarba lama gaadheen ya ibdaacba lama sameeyeen waxbaba lama keeneen markaan anigu qaabkan wax u arko adiguna qaab kalead wax u arkaysaa waa inaan labada isku keeno shaqada keliya noo taalo waa taas inaan iswaafajino aragtideenna kala duwan inaan iswaafajino qaabka aan maaragtay wax u soo saarayno waxyaalo badan inaan iswaafajino ayaa la rabaa labada qof laga rabaa isqabta wax fududna maaha marka mission inaan samaysano oon risaalo yeelano waxyaalaha ugu weyn ay naga caawinaysa waxa weeyaan inayn anagu iska daba wareegin oon isku mashquulino intan yar ee nolosheenni iyo meesha isheennu ay gaarayso un inaynan nolol ka dhigin oo hadafkeennu horizonkeenu uu fogaado ma aragtay ya marka maxay hayday aafaaq maa la odhanayay aan yeelano ayaa la rabaa marka labada qof haddii ay intay fariistaan ay isweydiiyaan ilaahay waa noo nimceeyey guur buuna siiyey xalaala dad badanoo nimcadda haysan baa jirta oo guur haysan oo amni darri u guursan karin amba faqri dartii u guursan karin amba caafimaad darteed u guursan karin waxyaalo fara badan ayaa jira marka intaasba ilaahay waa naga badbaadiyey waan ishelnay waan isguursanay xalaal baan isku nahay tiim baan nahay wada shaqaynaya oo hawl looga fadhiyo fardiga keligiis haddii ay hawlo u taalo labada qofna hawl baa u taal mujtamaca laftigiisa hawl baa u taal marka waxa weeyaan mas-uuliyeedka noo yaala bal inaan ka wada sheekaysano inta waxba la qorin bal in la wada fadhiisto oo laga sheekaysto maad aragtay oo la isweydiiyo baidni illahi alkariim labadeennu maxaan ku fiicannahay maxay tahay quality-ga aan haysano waxyaalaha inoo fudud maxay tahay aan qaban karno wallahi su-aalahaas waa muhiim jiddan marka in lays yidhaahdo guurkeennan quality-ga uu leeyahay maxay tahay ya waan isku fiicannahay waan isfahmaynaa in maad aragtay tanaasul baan yaan qabna haddii laysku muujiyo oo laga hadlo wixii lagu fiican yahay waxyaalaha lagu kala duwan yahay amba lagu liito way yaraanayaan
eeg agtaada shayga markaad soo dhawaysid wuu kula weynaanayaa shayga markaad iska fogaysidna wuu kula yaraanayaa ya marka gacantaadaba markaad eegtid haddii aad soo dhawaysid wax weyn bay kula noqonaysaa haddii aad iska fogaysidna way kula yaraanaysaa marka insha allah hadafka ilaahay noo abuuray aan rabno inaan isku garab galno inuu nala weynaado ayaa la rabaa oon ka dhigano wixii aan qaban lahayn inaan ka sheekaysano ya inaan anaku uun intaan cunto karino gabadhiina ay jika uun ku daba wareegto maanta ka dhan ilmo uun la cayrsado in dugsi gee iskuul gee bas intaa keliya maaha eeg intaa markaad samaysid maxaa u nooshahay mar haddii lagu idhaado ma inaan ilmo dugsi geeyaan u noolay ma inaan raashin kariyaan u noolay ma in maad rabtay aqalkan uunaan ka shaqeeyo oon shaqo tagon soo rabaxo waana sida ay nolosheena u badan tahay gabadh madaxis maalin ay maadaama counselinkaan samayno la jarana aan ka jeedino meelo kala duwan gabadh baa comment markaa ku darsatay waxay tiri gabadh baa waxay igu tiri anigu ninkaygii isma hayno waan kala mashquulay waa meesha aan sheegaya feelinka uu dayacan yahay aan lahaa guriga markama waxaan u imiday in aan dhalo keliya bes warshadii dhalaysay guriga uun fadhiday miyaan ahay oo de haddii ilmo uun in la koriyo haddii la rabo maan ilmo agoona soo urursadon koriyo ha okay iyadu markaa waxay ka hadlaysaa waxa iga maqan bay leedahay qofkii aan isguursanay ee aan nolosha ku heshiinay uu iga mashquulsan yahay ma haysto wehel ma haysto ma fahamtay okay risaala ku jirta marka raggu inay fahmaan u baahan dumarka laftigoodana inay fahmaan u baahan waxa ku dhex jirta risaalada oo ninka ku socota risaalada ninka ku socota fariinta ninka ku socota ee message-kaa gabadhaasi ay soo gudbinayso waxa weeyaan ragow gabadhu waxay u baahan tahay in la dhegaysto in lala sheekaysto shalay markaad shukaansiga ku jirtay dee waqtiga shukaansiga si fiican baad u sheekaynaysa maanta markuu ilmo yimi laguma hayo aniga ilmihii baad isku kaydaysa marka in ilmaha inta laga mashquuliyo gabadha la kaxeeyo sidii awalba loo kaxayn jiray la israaco waqti la siiyo ku noqdo buuggii ahaa maaragtay love languages the love languages the 5 love languages wuxuu ka hadlayay number 1 wuxuu ka dhigay quality time quality time marka la isa shukaansanayo hib waa la qaataade waa la israacayo waqti alxamdulillah waqtiga ugu fiicnaaba maaragtay la isla qaataa okay nimanku inay bannaanka sii aadaan oo gabadhu keligeed ilmaha ay la joogtana gabadha iyadana fariin kala ugu jirta halkaa ugu laaban oo u baahan iyaduna inay furfurto ninka qaabka u dhaqmayo ama wiilka qaabka maadaama maqan yahay inay iyadna la soo baxdo loo baahan yahay oo waa maxay ilmo markuu yimaado inayna keliya gabadhu ilmahan ku mashquulin oo isaga iloobin isaguna wuxuu leeyahay dee waad ilowday adiguna ilmihii unbaad ku mashquulsan tahay anigii maba arko okay tusaalaan usoo qaadanayaa kiis kale waxan waa kiisas u baahan inaad isul taagtaan dabcan noloshiinana way ku jirtaa waad ogtihiin ama kaaga ha ku jirto ama jaarkaaga ha ahaato ama saaxiibka ha ahaato waa la yaqaanaa waa wax dhaca wiil baa soo wacay halkan aan uga mahadinaya wiilkaas ilaahay khayra siiyo maalin dhaweyd buu hadiyad aad u qiimo badan ii soo diray isagoo ii mahadinaya sanad ka bacdi wey wiilkaasi hadda ka horna waa idii sheegay wuxuu yidhi sheekh anigu waan shaqeeyaa guriga markaan soo baxo markaan soo rawaxo waxaan imaadaa gurigii oo mees ah waxaan imaadaa gabadhii oo maaragtay gurigii caruurtii wixii oo dhanoo wada khariban upside down ah aniga maadaama wadaalana waxaan u baahanahay inaan markaan guriga imaadno maadaama gurigu sakan yahay aan dee meelaan ku nasto ile gurigii meelaan ku nastano guriga dhexdiisa maaha cidda nasiimada bixinaysaa maaha guriga gabadha wey gabdhaha waxaan rabaa inaan yani la wadaagon u sheego afarta qalcadood ee maaragtay la hoos galayo ma aha guriga waa adiga guriga waa haweenkaygu gabadhaa sakanka bixisa xasiloonida gabadhaa laga helaa marka isagna wuxuu waayey oo uu heli waayey gabadhii maxaa dhacay marka iska jira gabdhaha aad baan arrintaa ugu adkeynaya hibo gabadhu meel kale ma aadi kartee iyadaa la guursaday dee nin kale ma guursanay nin baa khalaas qaba laakiin ninku dee 3 boos baa bannaan baa la leeyahay oo madax maaragtay mar walba laga shtaa marka maxaa dhacay gabdhahana ogaada tartan baad ku jirtiin waa ku celinaya sheekh cabdiraxmaan bashiir muxuu yidhi
ninkaaga ayaan loo soo dhicin oo laga qaadan wadaxasuutii somaha yaa loo soo dhicin oo lagaa qaadanin adigu afartan noquu ku dhahay okay anyway waxaan ka wadaa ninka marka haddii uu kaa waayo attention meel kale uu raadinayo wiilka maxaa ku dhacay marka wuxuu yidhi sheekh meel kale liiga soo dhaweeyey marka waxaa dhacday buu yidhi in aan meelaan ku nafiso guri maaragtay carfoon diiran waa laga yaaba gabdhaha qaarkood inay ka xanaaqaan warkaa markay maqlaan oo dee 4 carruur ee wada lugaha yarar ayaa u dhiibay inay dhahaan isagaa qabo u dhiibay ma garatay laakiin meesha aan u socdo wax weeyaan ma aha malihi yacni wuu saxsan yahay oo markaan la hadlay dabcan aan la sheergareeyey khibradda u soo laabmay maalin dhaweyd marka aad wuxuu iigu mahadiyey wuxuu yidhi ilaahay baa ii kaa soo diray in aan sheekh kula soo hadlo haddii kale maanta reerkaygu burburi lahaa dadka qaarkoodna way ii digeen oo waxay dhaheen maaragtay war waxaas iska daayo meelaha ka leexo oo waxaad yacni ma sax maahe reerkaaga iskala joog laakiin waxaa wax badan aan kala baxay counselinkaadii samaysa maalin dhaweydba marka hadiyad aad u qiimo badan ii soo diray ilaahay barkay marka arrintaasi waa arrin guryeeda ka dhex dhacda runtii waa kaa qaatay tiib raalin ku counselinkaas ugu dambeeya ayaad sheegtay hadalkaaga ayaan rabaa inaan dadka la wadaago in aan maad aragtay ay u baahan yihiin dadku qof ka baxsan familiga oo ay u sheegtaan hawshooda qof welibana guurkan ku dhex jira oo ku takhasusaya oo ku dadaalaya inuu maaragtay ummadda waxu iftiimiyo marka happy family academy waan samaynaa counseling haddii uu qofku meel fog joogana wasiilooyin loo xiriira ayaa jira zoomki iyo skypeki iyo meelahaasa haddii uu magaalada joogo amba waddanka ingiriiska carriga ingiriiska ku nool yahayna in lays arko ayaa loo baahan yahay marka anigu waxaan xasuustaa reer runtii aad markaan xasuusto aan maaragtay u farxo reerkaasi waxay ahaayeen wiil iyo gabar isqaba oo london degan marka counseling ayay waad xasuustaa joro ayay soo doonteen safarka intay kusoo jireen bal ayaa waxaa dhacay safarka markay kusoo jireen ba axmed uu wacaa reerkii markaasuu yidhahda ma soo baxdeen haa waan soo baxnay london haa alxamdulilah in yar kadib markay joogaan handara uu wacaa halkee soo maraysaan halkaasaa soo marayna in yar kadib markay uu wacaa ma soo gasheen magaaladii waan soo galnay ha ma joogtiin waan joognaa haddana markay gabadhii guriga ay timid iyo wiilkii isla socdeen waxay tiri dhibaatadaydii iyo hawshaydii iyo problemkan qabayba sheekhow waaba iska xalismeenba leanna waxay ku xalismeen bay tiri ninkayga waxaan ku diidanaa oon dhibta aan kuula imanayna waxay ahayd inuu waxaa ka mid ahaa inuu walwal badan yahay inuu maalin walba oo daqiiqad kastaba raba inuu soo waco uu weydiiyo halkan joogo sidaanay sheekhow adigii baaba ka daran bay tiri adigii ayaaba ka daran boo dhaafiyey ninkaygi ma garatay daqiiqad noo soo wacaya ee na wareysanaya halkaan marayno iyo sidaana marka haddii aad fahantay qofku inuu ilaahay sidaas u abuuray oo walwalkaasi qayb ka mida ay tahay oo aynan ahayn inuu qofku maaragtay hadh kugu noqdo uu adiga ku daba taagay aysan ahayn marka way iska fududaanaysaa marka haddii aad horta isku day in waxaan waxa loo samaynaya ay tahay marka walaalayaal waxa weeyaan counselinkaasaan samaynaa waxaa kaloo barnaamij aada u qurux badan oon hadda aan bilaabayna ayaa jirta barnaamijkaas waxa weeyaan dhalinyarta isguursanaysa ayaan package u samaynaynaa maaragtay newly wed ah dadka hadda uun iscaroosaya markay dhalinyartu faamiyadu isbartaan ayaan ka hadlaynaa oo laysa siiyo oo guurkii laysku diyaarinayo in ay ka mid noqoto sunnaha la samaynayo waxyaalaha la samaynayo inay ka mid noqoto in training la doonto yaa haba kuu yaraatee wax uun indhaha kuu ifiya inaa la doonto marka taas ayaan hadda bilaabaynaa insha allah cid walba oo maaragtay amba ingiriiska ku nool amba maaragtay adduunka ku nool way nala soo xidhiiri kartaa oo isku diyaarinaysa guur labada qof marka ay faamiyadu heshiiyaan ayaan ka hadlaynaa marka inta ay haasaawihiiyo waxaa ku jiraan oo weli faamiyadu ogeyn waa kiis kale oo pre-marriage baa la yidhahdaa laakiin kan waa marka la heshiiyo ayaan ka hadlaynaa biidni illahi alkariim insha allah jazaakum allah khayr allah ku siihiyo waad xasuusay qoyska qoys aad u qurux badan markii ay soo socdeen landa ka soo socdeen ma wada hadlayn la socdaya ma wada hadlayn dabcan dhowr saacadood ilaa 5 saacadood marka horena waxay dhaheen waxaan u baahannahay 2 saacadood kaliya 3 saacadood hadday ugu badato waxaan wada joognay 6 saacadood
6 saacadood baan wada joognay dabcan waa dad ilbaxa waxay qabsadeen maxaan ku rahay childminder oo maaragtay lacag ka bixiyeen maxaa yeelay waxay rabaan in ay noloshooda ay wax ka bedelaan ay hore u mariyaan maadaama la isfahmi waayo markay sii noqonayeen runtii dee idinkuma soo koobi kara halkan markay sii noqonayeenna iyagoo qoslaya guriga ka baxeen waxay dhaheen qosolkii aan qoslaynay baan la dhanku aadnay alxamdulilah reerkii aad bay u dhaqan yihiin ilaa hadda waan wada xidhiidhnaa maasha allah ilaahay ha barakeeyo dabadayo ilmo kalaa soo ziyaaday kulankaas fiiri waa wax laga faa'iidayo walaalaha aad baan u salaamayaa dhammaan 200 iyo ka badan ee ku jirta aadka u qiimaha badan leh dadka inala socda waxaa ka mid a sheekh kashka halkan aan ka salaamayaa sheekh cabdulqaadir aad baan kuu salaamaya insha allahu tacaala lifekaagii waan sugaynaa biidni illaahi alkariim waxaan sheekh kugu dardaarayaa in aad soo celiso walaalahana waan iyagana la wadaagaya casharkii weliba aad cashar ii taabtay waxay ahaayeen casharada aad qoyska ka hadlaysay iyo jacaylku waxa uu yahay in la fahmo gaar ahaan dhalinyarada diinta kasii baxaysa iyo in diinta la jeclaysiiyo oo diinta ay u fahmaan sida saxda marka aad baad u mahadsan tahay sheekh aniguna waxaan ku darsanayaa horta ilaahay waxaan ka baryayaa sheekhaas oo kale inuu noo barakeeyo uu noo badiyo ilaahay idankiis isaga iyo maaragtay culimadeena kale maaragtay horumarka iyo fikirka maskaxda dadka furaya qofka waxaa la rabaa maskaxdiisa in la furo isaga wax walba qabsanaya markaa isaga cibaadadiisa ku dadaalaya isaga horumarkiisa ku dadaalaya hal mar uun wadada dhabada cagta ii saar wixii la dhihi jiray ayaa la rabaa marka culimmada sidaa u fikiraysa ee ka shaqaynaysa qofka maskaxdiisa inay furaan aad baan maaragtay u jecelnahay ilaahay ha noo kaa barakeeyo sheekh insha allah waxa weeyaan hawl culus baad haysaa garabna waad u baahan tahay runtii diyaarna waa unahay inaan kula shaqeyno jazaakum allah khayr haddii aan kusoo noqono barnaamijkeenii ha mission statementkii marka waxaan u yaro galleehay dabcan qoysaska dhibaatooyinka jira runtii arrimahaasaa ka mid marka arrimaha waxay u baahan yihiin runtii waan idinku adkaynaya walaalahay waxay u baahan yihiin gurigaaga haddaad rabtay inuu waaro qoyskaaga haddaad rabtay in uu horow maro waxaa lagaa rabaa ha is adkaynin 2 arrin baan anigu sheegay 2 waxaa ka dhalata saddexaad hiyo 2 iyo isku dhacday waxaa ka dhalataan idhi saddexaad iida u horeysa waa maxay waa ego iyaale ninka iida labaadii waa emotionka iyaale gabadha marka isku dhacaan isfahmi waayaan maxaa ka dhasha saddexaad oo ah qarax eruption mucaadalada u fiirso labadaasoo isfahmi weydo oo isku dhaca waa qaraxaas waa maxay waa furiin waa isdil waa kala teg waa burbur iyo ilmihii maaragtay hallaaba okay ama xumaada ama meel daran ka dhaca waxaan rabaa marka in laga hor yimaado marka hibo khayr allah ku siiyo guri waan guursaday ama guur baan diyaarinayaa okay aniga gabadhii waan kulannay ama aniga wiilkii waan kulannay waan isguursanay maalmaha horeysa way macaan tahay oo dee discover baa la isku samaynaya laakiin sideen uga dhigaa macaankan sideen u faafiya yani sideen uga dhigi karaa wax waara markaan guursanayase risaaladaydu maxay tahay sideen u samaysan karaa mission statement aan ku noolahay dee eeg maaha meel uu ku qoro ka teg waxaan ku noolahay oo jaarku iga arkaan oo xaasku iga aragto oo hadhow ilmo markuu dhasho layga arko oo weligayba aan saa ahaado صح ويان كسعيب والله سمعين كرا رنتي إن wax kasta waxay u baahan yihiin qood buu u baahan yahay نعم waxa naftan hadii gaajo lagu dilo de iimaankaagu ma kordhayo ya jidhkaagana hadaad baahi ku dijid de daciif baad noqonaysaa oo tabar ma yeelanaysid marka guurkuna zaad buu u baahan yahay in laga shaqeeyo oo wax la gasho ayuu u baahan yahay ina wax un laga suga ma adiguna inaad gabadha un ka sugtid inay ku wanaajiso gabadhuna ay ka sugto oo ninka inuu wanaajiyo kaliya ma وإن لبض قف إسواناجيان تبادل كاسينو صعد عيال الربا وما ركتي كواليتي إيو وناج عن قبنه وأكتين كوينادو قف كينو أكتين كوينادو عيال الربا وأفعاشا إيا أقواشا وكوهالله إيا وحا وسمعين هنا هدي أي وناكسين هنا الحمد لله هدي أي خلدين هنا وحا وين قفكي مادام كلوين يهي وحنا ويرانا يعني يا جلاسيس كاد وحكو أركيسيد وحا ويان إن وقفكو أكتاد مهم كيهي بإذن الله الكريم إن شاء الله
marka labadii qof markay isguursadeen waxaan idhi haddii ay hadaf ay u nool yihiin ay leeyihiin ayaga dhexdooda waxyaalahan yaryar ee dhacaya ma istaajinayso ya noloshooda ma joojinayso amba khalkhal ma gelinayso waayo waxa ay u nool yihiin ay u taagan yihiin ayaa ka weyn ilaahay inay raali geliyaan ilaahay addoomo u shaqaynaya inay noqdaan ya askar junuud ilaahay u shaqaynaysa inay dadkani noqdaan baa la rabaa gabadhuna ay noqoto marka maxaan ka shaqaynaya anigu wax kasta oo hawshaad qabanaysa kuu fudaydinaya inaan ka shaqeeyo adiguna wax kastoo aniga hawshaan qabanayo ii fudaydinaysa inaad ka shaqaysid biidnillahi alkariim ayaa la rabaa sideen mission aanu yeelanaa oon uga kobocnaa noloshan malalku ku dhacay ee ruutiinka ah ee maaragtay la toosayo ee gurigii un la joogo shaqada la-aada lasoo noqonayo wax badan aanan la samayneyn ayaa la qofka waxaa la yidhi haddii uu shay ku guulaysto sunno ayaa jira loo maro waddo ayaa jira loo maro guusha markaa shayga markuu ku guulaystay wuu soo qaadayaa wuxuu keenayaa gurigiisa wuu soo qaadaya meel iqtisaadkii amba financekii amba shaqadiisii ayuu geenaya marka wixii waxaa la rabaa inaad horta guul weligaa ma gaadhi wax ma ku guulaysatay isweydii haddii aad shay ku guulaysatay fikir dib u fikir wadadeed martay inteed sabartay inteed lacag gelisay waqti maxaa kaaga baxay yaa ku caawiyey maxaad buug akhrisay maxaad horumar raadisay waxaasoo dhan markaad isweydiisay intaan soo qaado gurigaagana geli ya imisaad buug ka akhrisay guurka imisaad muxaadarooyin ka dhegaysatay imisaad seminaara aaday imisaad trainingii aaday waxaani haddii aanan faraha lagu hayn haddii aanan la kobcin waxa weeyaan uu daciifaya walaalayaal meesha aan ka liidino waa taa inaan horu marino oon ka shaqayno ayaa la marka bilowgaba haddii laysla qabsado oo lagu heshiiyo in guurkani uu yahay hawl waa project waa shaqo ya project haddii loo arko projectigaasi wuxuu u baahan yahay in wax la gasho ayuu u baahan yahay in waqti la gasho ayuu u baahan yahay marka maxaan nidhi mission sideen u yeelanaa ya sidaan badbaadadeena ayaa waxaan ku jirta walaalayaal sidaan u badbaadno missionka waxaan ku samaynaynaa inaan bal su-aalo isweydiino inaan wada fariisano oon sheekaysano in la yidhaahdo 5 sanaan isqabnay maya 10 sanaan maraynaa in bilowgii way naga hoos baxdo maaragtay wax miishana maynaan qoran shay kastaba markaad ogaatid unbaad samayn kartaa markaad cilmi u yeelatid unbaad samayn kartaa marka hadda laga bilaabo maxaan qabanaynaa maxaan nolosheena hadaf uga dhignaa maxaan rabnaa guurkeena inuu kaga dawaanado guurarka kale maxaan rabnaa in ay deriska iyo sidaad sheegaysa axmedow in faamiliga iyo qaraabada iyo asxaabta inay nagaga daydaan maxay tahay waxyaalahaas ayaan isweydiinaynaa waxaan kaloo isweydiinaynaa labadeennu maxaan ku fiicannahay waxaan ku fiicannahay kaba soo qaad isfahanka may waxaan ku fiicannahay wadahadalka may waxaan ku fiicannahay wax isa siinta waxaan ku fiicannahay inaan ishorow marino oon isku ogolnahay inaan wax baranno oon dadaalno waxbaan isku ogolnahay waxbaan ku fiicannahay qofna maaragtay xumaan uun ma wada ihin dadna maaragtay wanaagun ma wada ihin marka quality-ga aan haysano bal horta buugi qalin aan u qaadano markaad ogaatid adaaba yaabi doonaba ya waxa kuu soo baxa kadib waxaad is odhanaysaa hadafka guurkeenu muxuu yahay walaalayaal jumlado ayaad ka dhigaysaa waad jumladaynaysaa waxa weeyaan sentence ayaad ka samaynaysaa hadafka guurkeenu aan maadaragtay uu yahay ma in aan ubadka un korsanno oon si yaroo tartiiba qunyar iskaga noolaano waa maya ma inaan communitygeena wax u qabanno maya ma inaan mujtamaca wax gaadhsiino maya ma inaan noqono 2 qof oo waxbarashada lagaga daydo oo maaragtay cilmiga horumarya maxaan horumarinaynaa 1 iyo 2 iyo 3 shay aan horumarino oon ku takhasusno waxani wax walba takhasus ayuu leeyahay marka guurku inaan shay ku takhasusnaa la rabaa labada qof waxaan ku jecelnahay in la yiraahdo sida ay isku fahansan yihiin sida ay iskugu dhibriyaan labada qof waxaan ku jecelnahay sida ilmahooga u daryeeshaan labada qof waxaan ku jecelnahay sida community-ga ugu shaqeeyaan labada qof waxaan ku jecelnahay sida ay maaragtay nafahooga u horumariyaan labada qof waxaan ugu shaqeynaa sida dacwadda ugu shaqeeyaan ma yartahay hawshaasi ma yara marka ilaahay wax kasta uu nasiiyay wax kasta oo ku shaqo gali leen ama aan ku hawl gali leen waan haysanaa walaalayaal marka su'aalaha markaan ka dhamaano noocyada guurkeena qodobadii aad rabtay inaad nala wadaagto insha Allah taala ka soo marka in maxay hayday missionkii ayaan wali ku jirnaa inaan qorano risaaladii inaan qorano ayaa la rabaa haddii aan qorano walaalayaal waqtigu nagama dhicin intaan doonno haddaan wada noolno isqabno waxa weeyaan waa inaan maalin uun fariisano oon ka hadalno waxan ya badbaadada guurkeena ku jira marka
in la qoro ayaa la rabaa 2 3 4 shay baan ku fiicannahay hal 2 3 ayaan qaban karnaa yaa haye labadaa shay aan qaban karno sideen ka yeelnaa usbuucii maxaan ku darnaa bishii maxaan ku darnaa sanadkaas halkeen gaannaa waayo qofku hadduunan himmo lahayn hadduuna hadaf lahayn hadduuna yool lahayn waxa weeye noloshiisa waa waxba macno ma samaynayso inaan wax ayrsano oon wax ku daba jirno ayaa la rabaa si aan maaragtay uga badbaadno annaka haddii kalena na cayrsantay sooma annaka maaragtay noqonaynaa ha annaka waxa weeyaan nolosha ayaa annaka maaragtay nakala furfuraysa oo nakala dhigdhigaysa waxaa la yidhi qofku maalin walba waa inuu tallaabo qaado qof meel baan iska taaganahay oo sidaasaan ku badbaadayaa odhan kara ma jirto waa inuu maalin walba tallaabo hore u qaado haddii aad is leedahay sidaasaan u joognaa isma ogidee gadaal baad u socotaa gadaal ayaad u socotaa walaalayaal marka in warqad yar lagu qorto ayaa la rabaa ya in warqad lagu qorto lianna waxaan sameeya waxaan ku wanaagsanaada qofku waa la dhihi karaa laakiin qofku markuu isagu wax qorto mar walba uu ka fiican yahay qofkaanaan wax qoran qoraalku indhahaagu yaalaa naftani way ku insaan baana eeg waan ilowsho dhownahay aad baan wax u ilownaa marka wixii qoran ee ku hor yaalla ee ishaadu subax walba ay qabanayso habeen walba ay qabanayso ayaa maskaxdaadu ay shiilaysaa ay ka shaqaynaysaa maskaxdan looguma talagelin inay iska jiifsato ay meel iska fadhido oo ammaanka kuugu dadaasho looguma talagelin su-aalu dhiib ayadaa shiilaysa oo ka shaqaynaysaa lagu leeyahy marka miishankaaga u dhiib ayadaa waxay kuu keenaysaa buug lagaga hadlay kuu soo qabanaysaa maya barnaamij lagaga hadlaad arki doontaa mar alla markaad istiraadid waxaan samee wixii ayaad arkaysaa wax ka agdhow wax ka agdhow oo wax aad kaga faa'iidaysanaysid ayaa mar walba naftii ay kuu soo qabanaysaa marka law of attractionkii baa jira waad arkaysaa waxaad is leedahay maanta baabuur guduuda gado magaalada dhan waa wada baabuur guduuda maya baabuur markadaasa gado magaalada dhan markaad dhex marisid baabuurkaasaad arkaysaa lianna hal mar baad maskaxdaada u sheegtay ayaduna waxay kuu soo qabanaysaa wixii bay kuu soo qabanaysaa walaalayaal in maxay hayday kala duwanaanshaha waxyaalaha aan ku kala duwannahayna inaan isbaarno oon isweydiino ayaa la rabaa ya haddii kala duwanaanshahayna aan barano inaan isxamilno oon isku dulqaadano oon isku sabirno baa noo fududaanaysa ya qofkani anigu sidaa baan ahay ya dabacaasaan leeyahay iyo waxaas ayaan kaaga duwanaya marka la yidhahdo la isbarto isbarashadu layskuma waxyoonayo oo qofba qofka kale qalbigiisa intuu galo ma soo akhrisanayo axmedow waa in laga wada hadlo oo laysku sheego marka kala duwanaanshaha iyo maaragtay waxyaalaha aan iskaga eegnahay iskaga midka aan nahay inaan balbarano ayaa la rabaa si aan miishan aanu yeelano miishan inaan yeelanona nolosheenna dhan ayaa ku badbaadaysa xataa ilmahaaga inaad futurekiisa ayaad hadda sii jeexaysaa sii qoraysaa badanka ubadku waxaa la yidhaahdaa aabbaha iyo hooyada shaqooyinka ay jecel yihiin ay ka shaqeeyaan oo passionateka ay ku yihiin bay ilmuhuna raacaan hadduu aabbo dhakhtara uu ahaa uu jecel yahay shaqadiisa ilmihiisu waxay u dhowdahay in ay maaragtay fieldigaas healthiga iyo caafimaadka iyo medicineka inay galaan haddii aabbayaashu amba hooyooyinka ay macallimiin iyo maaragtay ducaad iyo saas inay dacwada ilmahaagu u bataan ayaa dhici karta lianna nolosha aad ku nooshay iyo waxa aad samaynaysid way saamaynaysaa marka ayaga laftigooga ayaad futurekoogii iyo aayahoogii dambe aad hadda sii diyaarinaysaa ood sii jaaxaysaa adigu isma ogid laakiin raad ayaad ku leedahay ilmahaaga wax kastood qabanaysid raad iyo maaragtay basma ayaad kaga tegaysaa khayr allah ku siiyo hibo waxaan rajaynayaa walaalaha nala socda ilaahay idin barakeeyo waxaan wadnay arrintii ahayd qoyskayga wax ma ka bedeli karaa oo ah yacna ma hore u marin karaa meesha maxaan ku idhahdayey aan ka liito wax ma ka bedeli karaa waxa iga dhiman ma siyaadsan karaa ma heli karaa sidee loo heli karaa marka taas qodobada ay inoo sheegtay maclimada in la qorto oo la qaato oo qofku su-aalo uu isweydiiyo intuu isla fadhiisto inuu su-aalo isweydiiye ah maxaa iga maqan maxaa rabaa inta badan u fiirsada su-aalaha aan isweydiino waa laba arrin dadka qaarkood waxay isweydiiyaan weliba markay da yihiinna waxay isweydiiyaan dhimashada aad bay iska weydiiyaan dhalinyarada dhimasho ka hadlaysa maad aragteen dhalinyarada dhimasho isma weydiiyaan abad isma weydiiyaan dhalinyarada inta badan waxay isweydiiyaan laba arrimood halkeed dabcan wax badan way isweydiiyaan laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a guurka ka mid a halkeed gabadh ka heshaa halkeed wiil ka heshaa waa mid
waxaa ka mid a halkee lacag ka heshaa see lacag u samaysaa waxaa ka mid a kuriir fiican yacna caqliyaddii dee waxaa laynagu soo anqariyey laynagu soo koriyey waxay ahayd ischool teg maaragtay college gal jaamacad ka bax shaqo teg laakiin inta badan way yartahay cid isweydiisa financial freedom sidaan ku samaysan karaa aad bay u yartahay idinkuba tijaabiyo fiiriya ma aha wuxuu qofku maaragtay inta badan uu ku fikiro in uu xorriyad dhaqaale uu heli karo okay dadka waaweyn runtii middle age markay soo gaadhaan especially raggu aad bay isku xisaabiyaan waxayna isku xisaabiyaan xisaab ah imise ilmaad haysaa kow imise shahaadooyin baad haysaa labo imise dhaqaalaad haysaa saddex maxaad ka tegaysaa adduunyada maanta haddaad dhimato maxaa hanti ood haysataa intaasay isweydiiyaan hadday waxba arki waayaan oo intaasi ay ciriiri ku noqoto naxdin iyo depression iyo wareer iyo qalaq iyo fikir badan iyo humuum badan ayaa gasha allahuma intuu ilaahay u naxariista mooyaan oo qalbigooda rabbi ku xidhan oo adkaartii hameen iyo subaxba maaragtay akhrisanaya oo afartii shay ee nebigu sala allahu calayhi wasalam labalabada ahayd ee sideedda isku noqonaysay qaarna uu ka magan gelaya ilaahay subxaanahu watacaala qofka weydiisanayay qofkaasi hambalnimo ku nool yahay qof kasti laakiin wuu isweydiiyaa markuu da'da middle ageka soo marayo maxaad ajiif garaysay hibo haddaba risaaladu halkaanay ku jirtaa mission statementku haddaanad horey mission statement aad u samaysanin oo ay ku soo dhaaftay jaanisku kama dhigna in aad jaanis kale aanan haysan haddaba samayso haddaba bilow meeshaad joogtid ka dhaqaaq gadaal ha fiirinin waxaad fiirisaa hortaada gurigaaga maalan maadaama un qoys aan ka hadlayno maxaa la iga rabaa in aan wanaajiyo qodobadaan soo tirinay ee 7 ahaa iyo 5tii qodob ee ramadaan iyo qoyska aan isbarbar dhigaynay dib ugu noqo billahi calaykum walaalaha gadaal ka yimiday aan xasuusiyo qodobadii vision iyo mission baa ugu horreeyay relationship book waxaa la yidhaahdaa waxaa jira la yidhaahdo rethinking about relationship marka runtii relationshipka cilaaqada inaga dhaxaysa qoyska in aad isweydiiso halkay wax ka liitaan hadduu hadalku iyo xidhiirku uu liito xidhiirka maaragtay ka dhigo hadaf in aad wax ka bedasho hadduu dhaqaaluhu liito oo dhaqaalaha aad isku haysataan mafhuumka dhaqaalaha aad ka qabtaan dib ugu noqo runtii lacagtu waa midda ugu daran ee la isku dila inta badan laakiin dhallinyaradu way kala duwan yihiin ageka waa idiin sheegaynaa dadka isku dilaya waa kuwa way kala duwan yihiin dadka waaweyn ee waalidka ah arrinta dhaqaaluhu waxay ku haysaa xanuun badan dhaqaaluhu cidhiidhiga dhaqaale jira xanuun badan bay ku haysaa dhallinyaradana ee imika kuriir samaysay qaarkood waxay ku leeyihiin markaan 30 jir gaaro hibo ayaan guursan markaan 35 noqdo ayaan guursan marka runtii waa arrin u baahan mafhuumka aad ku bilowday in hadduu mafhuumka kuu hagaago qoyska kuu hagaagay waxaan isir weydiinayaa ma aqaana in aniga uu iga qaldan yahay imageka sibuu maaragtay flu u noqday haddii aad nala wadaagi kartiin siduu idin yahay idinka bal noo sheega jazakum allahu khayran okay u fiican yahay maasha allah axmed waan waxaan rabaa inaan kusii darsado in labada qof ay hadaf yeeshaan in waxa weeyaan waqti ayaa socda maadaama waqtigu nagu socdo in waqtigu waxa weeyaan adiga ayuu waa cimrigaagii oo socda waa lifekaagii oo socda marka labadan qof haddii ay hadaf ayna nolosha ka lahayn de way iska nool yihiin adduunkana waxba ma soo ziyaadinayaan ummaddana waxba u tari maayaan nafahooga xataa waxba uma tarayaan laakiin labada qof markay hadaf leeyihiin waxa weeyaan wax fara badan ayay u jirib dhigi karaan xataa iminka nolosha aan ku noolnay nolosha waqtiyadan lagu nool dulmigii ayaa fara batay yaa dowladihii baa dadka dulmaya xukaantii baa ummadda dulmaysa in wadanadeennii soomaaliya iyo jabuuti iyo dhulkii aan ka nimidno oo dhan waxa ka jira waa loo jeedaa in xaaraantii baa badatay dhicii baa batay waxaas oo idil
sidee looga hortegi karaa نعم wiil iyo gabar is-aaminsan oo isfahansan ayaa waxaasoo dhan u jilib dhigi karaya ya waxa weeyaan xataa in aad fikradahaas khaldan iyo waxyaalahaas ay xukaamtu samaynayaan laga soo horjeesto waxaad u baahan tahay adiguba dhabar baad u baahan tahay meelaad ku tiirsantaad u baahan tahay gabadhu haddii ay codkeega dhiibato ay ka hadasho nolosha ay muslimiinta ku nool yihiin meel walba lagu dulmayo iyo dadkeega ay ka hadasho waa inay ku tiirsanaataa nin fahansan oo maaragtay zawj fahansan waa inay ku tiirsanaataa oo garab siinaya oo niyadda u dhisaya oonan dhahayn ka fariisa magaalada aanan dhahayn ninku marka uu hadlo oo dulumka ka jira uu hadlo waa inuu fiqa ku qabo haweenaydiisa waa inuu kalsooni ku qabo marka hawlo fara badan ayaa noo yaala runtii shaqadu ma yara hawlo fara badan baa loo yaala marka waa u baahannahay garabka labada qof ee garabka way isku baahan yihiin si ay waxyaalo fara badan u qaban karaan ay u samayn karaan runtii fadhi nooma yaallo dadku waa inay u fikiraan noloshani waxa weeyaan waa jihaad joogto ah waa loolan joogto ah maxay ahayday maalin walba challenge ayaa kaa hor imaanaya caafimaadku hadduu kuu saamaxo wax badan baad qabsan kartaa shaqada lacagta waxaan oo dhan waa la keeni karaa waayo labadii qof ayaa isfahmay muhiimadduna waa intaas marka walaalayaal inaan fadhiga ka kacno ayaa la rabaa oon maaragtay ay ku mashquulinoon waxyaalo kale aynan fudaydsan xataa aynaan dhihin labadan qof maxaana noogu mashquulinaya guurka maxaana noogu mashquulinaya waxyaalo ka fara badan ayaa jiro la samayn karo guurka ayaa sal u ah meesha aad kusoo noqonaysid shaqada markaad kusoo daashid howlahaaga markaad ka timaadid safar markaad ka timaadid siyaasad meesha aad kusoo noqonaysid waa gurigaaga ya wiil iyo gabadhba meesha ay kusoo noqonayaan waa gurigooga marka xaaskii iyo guurkii iyo qofkii aad iscalfateen haddii uu noloshaada waxa aad ku mashquulsantahay iyo waxaad hirgelinaysid uuna kula ogeyn ya ogo isaga caqabo kugu noqonaya caqabo meel dheer ha ka raadin marka walaalayaal in waxaan rabnaa in aan maaragtay si serious ah oo runtii maaragtay ilaahay aan kaga baqayno inaan guurkan aan ula dhaqano biidnillahi khayr allah ku siiyo hiba waxaan rabaa inaan la wadaago maadaama waqtigu soo gabagaboobay inaan la wadaago buuggii habeenka dhowdaan sheegay waa kaas why men don't listen and women can read maps waa aragtiin baan rajeynaya insha allahu tacaala googleka geliya waad heli kartiin waxaad moodaan sawirka dhinaca kale may waa u kala bedeliyin laakiin titleka waa kaas insha allahu tacaala kan kale waa buug kale isaguna cajiib ah odaygani 40 sano oo research ayuu wadaa Seattle buu degan yahay the 7 principles for making marriage work wax badan baa ku jira casharaan ka dhignaa runtii aad buu u qiimo badan yahay ka faa'iidaysta dhalinyarada galbeedka jooga iyo kuwa joogama maaragtay geeska afrika iyo caalamka meel kastaba jooga ka faa'iidaysta biidni illaahi alkariim sababta aan idinku sheegayo buugaantan waxaa weeye buuggani wuxuu ka hadlayaa wax guud kama hadlayo runta idiin sheegaya caawa dhegeysta buuggani wuu dhaadhacayaa adiga iyo xaaskaaga sidaad u wada hadlaysid adiga iyo ninkaaga sidaad u wada hadlaysid buu kuu soo ururiyey especially buuggan ninka qoray John Gottman institution buu leeyahay maxay research bay ku sameeyaan dadka qofka waxaa lagu xidhayaa maxaan ku dhahayay apparature yaryar oo sheegaya beatka uu qalbigiisu samaynayo conversation baa loo sameynaya dadka marka iyaga ay wada hadlaan qofka maxaa kicinaya muxuu ka xanaaqaya muxuu nervous muxuu u noqonaya maxaa maaragtay ka dhigay inuu sidan u fikiro perceptionkiisu halkuu ka keenay inuu sidan wax u arkaya halkuu ka keenay waxaasaan u baahannahay in aan deep down aan dhaadhacno oo aan aadno oo aan baranno su-aal baa idi weydiinaya imse sana maaragtay la bartaa jaamacadaha 4 sano 3 sano 5 sano 6 sano 7 sano hadba facultigaad ku jirto hadba maadada aad baranaysid sooma soo saas maahibo sax weeye ha haddaad dhaqaalo badanaysa intaasoo sano haddaad dhaqtarnimo baranaysa intaasoo sano billah calaykum yaa bartay oo jaamacad u aada gabadha ninkay guursan doonto siday u fahmi doonto gabadha jaamacad aadawaatee ninka jaamacad aada gabadha uu reerkooda ka doonanayo ee uu guursanaya ee uu raba inay noloshiisa ay u noqoto sakana ilmo u dhasho ku tashaday in uu barto horta gabadha waayo gabadha maxaa la yidhaahdaa maxaa gabadh ah siday u fikirtaa ha maxay jeceshahay maxay neceb tahay waxaas waxaad u arkaysiin qaarkood dhalinyarada kaftamaya raalli noqdo odayaasha kaftamaya raalli noqdo dumarka kaftamaya raalli noqdo
noloshu haddii qaarkiin ay idinka madoobaatay qaar ay u caddaha jirta ay u qurux badan tahay qaar baa raba in maaragtay gacan la qabto oo wax wanaagsan la tuso dhallinyarada kaftamaysa waxaa idiin sheegaynaa runtii oo idinla wadaagaynaa annagaa nagu mashquulina naftiina ku mashquula ha naftiina ku mashquulo oo waxaad samaysaan wax noloshan yacna kaa dhigi kara inaad ku guulaysato ha ku mashquuli bilaadanka ilaahay ku mashquul noloshaada sideed u horumari lahayd guurkii waa loo taaglaayahay furiinkii baa dhallinyaradii ku bartay maalin dhowta waxaan la kulmay wiil dhallinyaro ah birmingham wuxuu igu yidhi billah calaykum u fiirsada annaga oo 20 ah sheekh oo aadna garanayso oo aan ku kornay masaajidka agtiisa ma aha suuqaya masaajidka agtiisa aan ku kornay ayaan wada guursanay buu yidhi hibo 20 dhallinyaro aniga wiil kalaa maalin dhoway tirinay buu 20 kii misaa soo hadhay gees qiyaas inta soo hadhay ee maanta isla joogta meeqa wuxuu yidhi 4 aan anigu ku jiro ayaa soo hadhay buu yidhi 4taana maxaa jiru yidhi 4taana way legleganayaan eeg 80% weeyaan waxa burburay 20 baa soo haray eeg 24 marka laga soo qaado waa saas haddaad adigu raaxi iyo nicmad haysato qof aan haysan baa jira waa inaad u naxdo welibana waxaa joohar u jirtaa in dhallinyartaas haddii dib loogu noqdo amba meel la iskugu keeno la weydiiyo guurkooga muxuu ku burburay wax aad basiid u ah ayuu ku burburay ya marka waxa kaste barasho iyo training iyo akhris iyo raadis kama soo haro wax kasta oo la rabo inaad tayo loo yeelo oo maaragtay la wanaajiyo waxa tayo loogu yeela cilmi baa tayada keena cilmiga unbaa tayada wax walba u yeela ya shay markaad soo saaraysid haddaad cilmi u leedahay wax fiican baad soo saaraysaa marka kaama goy halkaaga macnihu yani waxyaabaha runtii aadka ii dhiba waxaa ka mid a dadka diintu ay u tahay dharka ku mashquulsan zayiga ku mashquulsan yacna kan waa xaaraan kan ma samayn kartid ma bixi kartid halkan ma aadi kartid kan ma samayn kartid diinta ilaahay waa wax lagu noolaado ma aha wax la isku addoonsado waan ku celinaya diinta ilaahay waa wax lagu noolaado ee ma aha wax la isku addoonsado waa lay garta soo maha saas awgeed waxaan odhanayaa dadka isguursanaya dhallinyarada ah dadka maaragtay iyagu isqaba ee jecel inay diin ku noolaadaan waxaad ku noolaataan diin xor ah billah calaykum diin xor ah oo aad si xora aad u tahay aad u fahantay xadiiskii nebiga calayhi salaam oo aad u taqaana jacaylkii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo aad u taqaana aayaadka qur'aanka waxay ku farayaan towards maaragtay qoyskaagii iyo reerkaagii iyo xaaskaagii iyo ninkaaga inaad ku noolaato maaha in laisku guumaysto hibo guryaha qaarkood dhallinyaradu waxay ku burbureen oo ka mid ah inuu ama wiilku too extreme yahay ama gabadhu too extreme ay ku tahay diintii oo wax waloo la sheegaba caqabad diineed kuwii waxaad ka wadaa diinta xataa ku dhaqmayey inay iyagii xataa ay noloshoodii ay diintii badbaadin laanna qaabka ay diinta u qaadatid unbay ku xidhan tahay ya diintu waa diintii un waa isku mid laakiin nin walba qaab ayuu u qaadanayaa sibuu maaragtay ugu noolaanaya markan isku fudayda wax badan isku fudayda ha isku adkeyn biidni illahi alkariim insha allah hiba waxaan ku soconaynaa insha allahu tacaala khayr allah ku siiyo walaalahay waxaan insha allahu tacaala aan ugu talagalnay in aan idinla wadaagno maanta intaasoo qodob in la isku dayo dadku ay faraysaan ka diyaarinaya waa laga yaaba dhallinyaraa soo qortay sheekh dhallinyarada singleka maxaad u haysiin waxaan idiin haynaa runtii brograamyo aan ugu talagalnay wiilba ii yimid sanad ka hor aan idiin sheeg maya 3 sano ka hor bay ahayd markuu ii yimid wuxuu yidhi sheekh waxaan u baahanahay barnaamijkan aad waddo inaan guursadaan rabaa waxaan u baahanahay talo counselinka dadka qaarkood qalad bay ka fahmeen waxay u maleeyeen marka la isku xanaaqo in counseling la doonto maya counselinku waxaa weeye oo ka mid ah inta aad wax bilaabinba in aad raadsato aqoon inaad raadsato talo inaad guidance aad raadsato counselinku waa guidance wiilkaa wuu ii yimid waxaan ku yidhi ii imow magaalo kaluu ka yimiday oo UK ah wuu ii yimid wuxuu ku talagelayay inuu ila joogo saacad marka hore iisoo sheegay maxaa dhacay waxaan joognay 5 saacadood baan wada fadhinay waa qada tagnay waan wada fadhiisanay buug iyo qalin baan qaadnay
waxaan qornay listan Ay. markaas wuxuu yidhi weligayba isma weydiinin listigan aad sheekh taxday caqligayga kuma soo dhicinba gabadha anigu waxaan dabcan waan maqlay bul xadiiska diin baa gabadh lagu guursaday Ay. gabadh diin dooro waan maqlay bul laakiin joycekeeda tastigeeda dharka maxay ka heshaa maxaan ku idhahdaayey faamiligeeda hooyadeed say ku tahay aabaheed say ku tahay walaalaheed say ku tahay wiilku hooyadii siduu ku yahay waxaan oo dhan sheekh kama fikirin bul Sabta kuma darsan. listigan marka waan qaadanaya inta ka soo jawaabo baan kuu soo daray Ay. 2 cisho iga maqnaa wuu soo jawaabay listigii wuu ii soo ceshay Masha Allah. wiilkii goormuu guursaday hibo Ma. kow wuxuu yidhi sheekh maanta sanad iyo badh baa ka soo wareegay maanta ayaan guursanayaa wy gabadhii hore waaga aan kuu sheegayay aan rabay inaan guursadana waxay ahayd emotion baan ku guursanaya yidhi maanta xamaasad baan ku guursanayay baahi baa ahayd si jiljid desire baan u guursanayay marka uma guursanaynin mabda'a gurigani inuu waaro u fiirsayahibo laakiin maanta waxaan u guursanayaa buu yidhi qofaan isku aragtinahay wuxuu yidhi aabbahay baa يعني waxbarashada jecel waa xafiska jecel isaguna buugaanta la lagu waaweyn buut markii yimid ma sha Allah ha xajkan isku raacnayhay marka wuxuu yiri qof sideedii oo kala fieldiga aan ku jiro fikirka aan maaragtay sida aan u fikiray iyaduna ila fikirta ma aha inay tayada qaadanayso kaliya iyaduna saa u fikirta iyaduna saa u fikirta baan maaragtay isheluu iyaduna sida u fikirtadaas waxay ugu dhalisay Axmedow waxyaalaha khaladaadka dhaca guurka ka dhaca waxa weeyaan in uu qofku rabo inuu qofka kale isaga weekaado cajiib moogtahay bar hadda ilaahay wuxuuba ku siiyey qof kaa duwan oo kaa fikir duwan ayuu ilaahay ku siiyey oo ku kamilaya oo meeshaad wax ka arkaysid meesha kaa maqan angalka kaa maqan kuu sheegayo ku tusaay ya marka maxay hayday qofkan markaad heshid هبدلين أو هيسكدين إنها تبدشيد وصداده كله فكرة نعم يا بروتوتايب ها صداده كله إنه فكرة هيسكدين إن شاء الله كونسل محل ده هذا ماشي السوق ريا كونسلينج ولا تلين قفك ولا تلين إيسا وتجي وحبات ها وحويان وتلمام إيسا وحبا وكوشت ينولشيسا أياد information كاسد كلا صباح إيسا حلول على الرادين إيسا إيسا أياد جين إيسا هير inuu xal raadsado uu heshoodo xalka inuu isagu keensado oo aqligiisa intuu shiilo qalbigiisa ay ka soo baxdo siduu bari ugu dhaqmiga marka waa garabgal qofka counseling ku sameeyay uu ku garab galaya cilmi buu kugu garab galaya khibrad buu kugu garab galaya kadib ayuu wuxuu ku gaarsiinaya meesha aad rabtay bin ilal kareem way ka duwan tahay way khayr Allah ku siiyay way ka duwan tahay talada maxaa ku dhahday qof qaraabi uu ku siinay way ka duwan tahay talada uu ku siinayo qof wadaad ah counselingku waxay ka imaanaysaa talo qof expert ku ah qofkan meesha uu u socdo waxa uu ku weydiinayo inuu ka helo way ka duwan tahay advice iyo counseling baa la kala dhahaa taladu de mar baan kuu sheegay ama qaada ama qaadanin counselingku session bay leedahay steps bay leedahay follow up bay leedahay result bay leedahay la socdaya result bay leedahay natiijo counseling waxaa laga rabaa natiijo in laga gaaro wuxuu leeyahay investment wuxuu leeyahay commitment wuxuu leeyahay waqti kharash ha wala garsama counseling maaha ila taliyo salaama may kharash baa laga rabaa waqti baa laga rabaa dhabar adayg baa laga rabaa natiijo inaad gaadho jaranjar baana lagu marsiinayaa ya خوفكاغا لغو تصيا ميلها ضعيفكا كوتها لا سو ساريا ادا لا اسكا بريا نولشادا كقاركود way ooyaan hibo waa lagu jafaya maskaxdaada ayaha laga soo saaraya iyo qalbigaaga laga soo saaray shakhsiyadaada la soo saaraya adiga lagu hor keenaya waxa tahay ayaa lagu hor keenaya marka lagu hor keeno kadib ayaad waxad laga sameeynaya maxaan qaban karaa ya markii aad ogaatid maxaan qaban karaa walaalayaal dadkan Englishka ku hadal maxay hayday ma loo sameyn karaa de waxa weeyaan af Soomaali baan ku hadlaynaa ilaahay luqad buu nasiiyay ya Englishku waa ka dambeeya luqadda Soomaaligu ka dambeeya wax walba inaan af Soomaaligeena ku barano oo ku sheegno ayaa la rabaa insha Allah aan ku bixino marka qofkii luqadda ay dhibayso waxba uu ka walwalin waa in af Soomaaligeena qaniga ay hodanka ay macaan
aan wax walba ku sheegno biidni illahi alkariim. walaalaha soo qoraya waan u baahannahay counselinka talooyinka insha allahu tacaala emailkeena aad helaysiin waan idiin soo qori waad nala soo xiriiraysiin biidni illahi alkariim. pagekeena happy family academy oo hadda facebook happy marriage academy ugu qoran insha allahu tacaala isagana laygaraya nagala soo xidhiira. waan soo gabagabaynaynaa wax badan baan maaragtay caawa aan qaadaa dhignay missionki oo ah sidii kelmadii baxday wadaadkii maxamed cariifi uu dhihi jiray dacbas mataka oo kale khayr allaha siiyo. adigana in aad legacygaaga aad samayso risaaladaada inaad qorato oo aad derbiga ku nabato oo ay kuu noqoto maxaad ummadda dhexdeeda qoyskaaga maxaad rabtaa risaaladaadu inay ahaato meel ku qoro risaaladaadu missionkaagu muxuu yahay haddii la yidhaahdo. waxaan walaalaha la wadaagaynaa wax iclaama hiba iclaamka waxaa ugu muhiimsan maadaama oo samar lasoo galay waqtiyadan guurar fara badan baa dhaca dhalinyartu aad bay isku guursadaan maaragtay caroosyo fara badan ayaa wadada kusoo jira waxaasi inay naga burburaan ma rabno. marka qof walba oo taqaanid amba maaragtay oo guursanaya oo isku diyaarinaya guur inaad la wadaagtid in aan barnaamij gaar ah oo 1-to-1 ah oo khaas loola kulmayo aan u samaynayno walaalayaal. gabadha iyo wiilka ayaan barnaamijka u samaynaynaa keligood kadibna faamiligoogii ayaa lagu soo daraya xisaabta lianna reeraha qaarkood ayaga maaragtay reerka ilaalin kara oo garab gali kara amba burburin kara. marka labada qofna waa la tababarayaa faamiligoogina waa lala tababarayaa. kharash aan maaragtay culays aan ahaynna weeyaan yaa ku baxaya. marka guurka maadaama lacaga fara badan waxyaalo muhiim u ahayn oo labada qof aanan u harayn lagu bixiyo wixii u haraya inaa kharashka la geliyo ayaa la rabaa. ya maanta koorsadaas haddii qofka lagu yidhahdo compound baa lagu bixinayaa waxa weeyaan free weeyaan kunka bon wax alla waxay maaragtay culays ay ku tahay ma jirto lianna ayaga ayuu u harayaa waxani waxa weeyaan habeenkaas iyo hawadaas ma raacayo waa cilmi ku haraya. waxaan kale oon samaynaynaa labadan qof trainingka siino shahaado ayaan siinaynaa. shahaadadaas kadib sidaa kuma daynin oo suuqa kuma sii daynin oo ma dhahayno khalaas 10kii wad qaadateen ilaahay garabkiina ha galo. laakiin waxaan samaynaynaa ilaa maaragtay muddo ayaan daba soconaynaa dhalinyartaas oo annagu waxaan rabnaa in aan bal dadkii aan wax tababarnay waxa ay ku dambeeyeen inaan ogaano oon 6 biloodba mar la fadhiisi aan la samayno. marka qof walba oo samarkan hadda guur diyaarinaya uu nala soo xidhiiri karaa casharadaas ayaan siinaynaa waana khaas waana 1-to-1 biidni illahi alkariim. runtii waa barnaamij aad u qurux badan leafletkiisana waan soo dhigi doonaa insha allah. wixii magaalada Birmingham nala joogana daweyba nala joogaan ingiriiska xataa nagama fogo. qofkii ingiriiska ka baxsanna waxa weeyaan zoomka ayay soo galayaan oo la is arkayo shaashadaas muuqata ayaa laga qaadanaya casharkii biidni illahi alkariim. dabcan waxaan idinla wadaagi doonaa oo kale in aan online course aan idiin soo wadno insha allahu tacaala hadduu alla yidhaahdo. sida oo kale waxaa suuragala safaro in aan gallo hadday yurub tahay iyo haddii ay north america gaar ahaan canada ay tahay. dabcan waan rajaynaynaa in aan aadno. waa suurtagal geeska africa laftigiisa inaan aadno biidni illahi alkariim. si aad noola socotiin pagekayga maxaan ku idhahdayay like saara pageka companyga maaragtay happy familyna like saara si aad u ogaataan waxa aan soo dhigayno haddii alla yidhaahdo. wixii tali iyo tusaaleyn ah wax aad rabtiin inaan idinla wadaagno waxa aad jeceshihiin in aad naga heshiin waxa aad rabtiin inaan idinka jawaabno nala soo wadaaga biidni illahi alkariim. xaggee lagala soo xiriiri baa ku qoran oo nagala soo xiriiraya dabcan emailkan hadda idiin qori baaraka allahu fiikum. emailkeena labadaba waan idiin soo qori. marka intaad emailka noo qoraysid insha allah waxa weeyaan gabdhaha iyo wiilasha waqtiga nool taxadiyaadkoogay leeyihiin ayaga laftigooga maaha maaragtay qofku meesha uu ku nool yahay ayaa saameynaysa. marka noloshan ayaa laga hadlayaa. waxaan ka hadlaynana jaanibiyo badan ayaan ka galaynaa guurka oo ah maaragtay anakoo isticmaalayna cilmigii maaragtay ijtimaaciga ee bulshada psychologyga anakoo isticmaalayna coaching anakoo isticmaalayna waxaasoo dhan ayaanu isticmaalayna. kadib
afka uun laga hadli maayo laakiin buugaan baa wax lagu qoraya workbook ayuu leeyahay oo wax lagu qorayo iyo maaragtay textbookgii oo lagu dhiganayo casharkii buug ayaad buuggaasaad kala tegaysaa labada buug baad kala tegaysaa casharkii kadib waad qoraysaa weygii kastaba xikmad ayaa lagu siinaya xikmad guurka ku saabsan baa lagu siinaya xikmadaasi sidee kuu saamaysay maxaad ka faa'iidaysatay sideed u hirgelisay waad qoraysaa qoraalkaas iyo maaragtay isdaba socodka ayaan rabnaa inay reeruhu ku badbaadaan biidnillahi alkariim qof kastoo diyaar u ah uu nala soo xiriiri karaa oo raba inuu guurkiisu maaragtay u tooso uu hagaago biidnillahilahayna oon tala saaranayna arrintii lifestyleka laftigeeda iyo maaragtay waxaan idinku ballan qaadaya aniga waxaad baryahan aad barateen runtii inaan idiin soo xidho dad haddii dhaqaalaha ay noqoto iyo haddii ay noqoto dhinaca maxaan ku idhahdaa odorista mustaqbalka iyo maaragtay diinta iyo siyaasadda iyo nolosha oo isku wada jirta dadkiina waan idiin soo xidhi culumo kala duwan aqoon-yahano kala duwan hadduu la yidhaahdo livekii joojin mayno kolley usbuuca soo socda waa ciid taasaan idiin fasaxayna usbuuca soo socda laakiin wixii ka dambeeya biidni illahi alkariim waan isku soo noqonaynaa waqtina waa qoyska waqtina maaragtay waa aqoontan kale ee aan u baahannahay inaan dhaqaalana ku horumarino nolosheennana ku horumarino qof baa kusoo noo soo qoraayo jinaan joogaa sideen inila soo xiriiri karaa emailkaasun emailkaas noogu soo dira waxaad rabtiin inaadna weydiisin insha allah طبعا تلفونكيغana waad ka heli kartiin pageka khayr allah idin siiyo oo uu ku qoran yahay whatsappkana waad igala soo xiriiraysiin baaraka allahu fiikum jazaakum allahu khayran annagana noo soo duceeya halgan baan ku jirnaa oo dee halgan waxaan kula jirnaa dhaqan kow iyo shaydaan shaydaan baa ugu weyn dhaqankuna waa maxay dhaqanka waxaan ka wadaa dadka qaarkood inaan sidan isku ag fadhino way dhibaysaa marka dadka qaarkood way la yaabayaan maxaa laga hadlayaa qof baa haddeer soo qorayey dee waa la yaqaanaa maxaan ku dhahdaay guur baa hadda laga sheekeynaya caqliyaddaas daalan wax kasta oo la sameeyo dhinaca negativeka ka fiirinaysa ayaan rabnaa inaan bedelo oan u bedelo positive aan u bedelo walaalayaal positive baan u bedelaynaa annagu waxaan ka hadlaynaa waxyaalo maaragtay nolosheena raad ku leh insha allah waqti uma hayno inaan ku dhimino dadka maaragtay caqligoogu dayiqa yahay oo xiran yahay waqti uma hayno ummadana jecel ee wanaagsan ayaan rabnaa inaan waqti la qaadano annaka laftigeena ayaa guurkeena ku badbaadaya walaalayaal wallaahi moodina wax fudud inaan wax aqrino barax muftiila hore noo sheegay reerkani waxay u bilaabeen buu yidhi hawshan ayagaa markay arkeen furitaanka iyo meel walba cararaya jaarkii oo gubanaya ayaa waxay ku ordeen buu yidhi guurkan ka hadlaynaa bay ku ordeen marka hadalkiisaas waa run guurka ayaan ku cararnay waxaanan kolkaa hore maynaan moodayn laakiin waan ku badbaadnay waan isku soo dhowaanay waan isfahanay yaa waxa aan dhigayno iyo waxa aan sheegayno annaka ayayna anfacday wallahi intay qof kaleba anficin marka qof kasta waxaan jecelnahay inuu koorsooyin guur iyo hawlo iska galo siduu ugu badbaaday insha allah buuggaas waa buug kale family leadership waxaan u malaynayaa in aan soo dhigay haddii aan hela dib baan usoo diri doonaa kelmad yar bay ka diyaarisay hibo qiyaadada ama qoyska leadershipka ayaa maaragtay ay ka hadashay qawaamada halkan aad buu uga doodayaa sheekhan qoray doctor maxamed rida bashiir inuu reerkan dayahaan rajaynayaa waad heli kartiin marka buugaantaana ha la helo guriga shelfsa lagu samaysto aad baad u mahadsantihiin aad baan idiin jecel lahay meel kastoo aad joogtiin waxaan leenahay ramadaanka ilaahay naga aqbalo ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ilaahay sanadka sanadkiisa caafimaad iyo barwaaqo iyo raaxo iyo iimaan allah inagu gaarsiiyo cibaado suuban faamiliyada oo dhan min geeska africa ilaa qurbaha aad baan u wada salaamaynaa inta jabuuti joogtay inta soomaaliya joogta inta etoobiya joogta inta somaliland joogta kenya inta joogta aad baan idiin wada soo salaamaynaa inta carabaha joogta dalalka africa oo dhan turkiya culummada aad baan usoo salaamaynaa hibahaye ilaahay waxaan uga baryaynaa baryahan rabadaan culummada saddexda maaragtay culummo sheekh ee sacuudiga uu leeyahay ciidda kadib baan dili doonaa uu leeyahay waxa weyn ilaahay baa wax dila ilaahay baa naftan qaada ilaahay baa naftan gacantiisa ku jirtaa haddii uu maaragtay kusii adkaysto sacuudiga inuu culummadaa laayo waxba kama caashayo waxba kama heli doono insha allah soomaaliya ayaa wadadaa soo martay in yar maaragtay kiibarka ku jira sacuudiga iyo maaragtay qooqa ku jira
dib ha u dhigto oo ilaahay ha ka boqo oo maaragtay waxa weeyaan loo duceeyo ha marka waxaaban anigu niyadayda marmar is idhaahdaa culummadan ilaahay maaragtay ilaahay baa abuurtay oo addoomo yihiin in qooqa sacuudiga inuu dhammaan doono yaa waayo gacmahooga ayay ku sababayaanba aala sacuudkan khaatiga laga joogo in lagaba nasan doono biidnillahi alkariim reerkan qabsaday maaragtay dhulkii barakaysnaa qabsaday ee baaba-a iyo burburka ummadda islaamka maaragtay ka shaqaynaya in laga nasan doono ayaga baaba-ooga inuu bilaami doono ayaan isle maaha shacibka sacuudiga kama hadlayo laakiin xukaanta iyo boqortooyadan iyo dadkan kibray ayaa laga hadlayaa ilaahay culimmadeena hanooga badbaadiyo kibirkooga iyo dulumka ay ku hayeen ilaahay dhulkeenoo dhan hanoo badbaadiyo ilaahay maaragtay wadankaa yara jabuuti ha garab galo oo ha badbaadiyo oo ninkaas isna kibray ee meesha maaragtay ay ku boodboodaya halkii maamadii ku boodboodaya inuu ilaahay ka qabto oo wax khayr badan oo ka wanaagsan oo maaragtay diinteena iyo nolosheennaba maaragtay ka shaqeeya inuu ilaahay noogu bedelo biidnillahi alkariim meeshan fadhi ma jiro walaalayaal muqaawamaa lagu jiraa wadanadii oo dhan way wada ololayaan marka in aan waqti ku dhimino maaragtay hadallo iyo cabaf iyo waxyaalahaas maaha wallaahi ducadaas iyo sujuudda inaan ugu ducayno culimadeena biidnillahi alkariim jazaakum allah khayr ilaa khayraani siiyo telefonkeena meeshaad ka heli kartaan بارك الله فيكم شيخ وسلام يا شيخ عبد الرحمن سليمان بشير يا فاميلي خير الله السيو وينلا سعدا إلهي بركة يا شيخ آد من إذين سلامينا إذين جعل الله إذين كنت هنيديننا إنيهم بليانينا ولا له أنت صورنا لسه السعودية نسوا داوني وحنديك عطسني يا بيج كا عن إجلا سعودية إن الله يجريسان إن شاء الله كهابي فاميلي أم هابي مارج بقرن هذا inaad isagana la garaysaan si aad noola socotaan ood noo ogaataan biidni illaahi kariim ugu dambeyntii guulaysta meel kasta oo aad joogtiin walaalaha ka shaqeeya aad baan u hambalyeynaya dadka inay hore u mariyaan xadiis baan kusoo xidhaya insha allah nabiga waxaa la weydiiyey yaa dadka u khayr badan iyo wuxuu yidhi khayru nnaasi anfacuhum linnaas risaaladaada ma ku jirta inaad ummadda anfacdo isweydii aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.